بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكحلي أو بشو طبعا هاد أو دوبي مدحوينه حلك كذا ماضي محمد عبد الله فرماجو وحامر كستل الصعدة أو ليه هاي سدة بن أو نو ليه هاي هذا الكيجا هآمنيننا سوته فعل كيسة أي مركز خلاف سن هذا الكيسة سيدا الله صعتان شن إلى واتن كي ديسمبر سنة كي تجي أيو سكول بوليسي كجدي خطبة وكو أماني رئيس الوزراء كنا شاقي inuu taageersan yahay sida ay doorashada u wadaan dowlad goboleedyada habeenkiina wuxuu soo saaray inuu yahay wasaarihii xilkii ayaan ka joojiyay xafiiskiisii iyo xaruntii hoyga u ahaydna ciidan oo dul dhigay asagoo isku dayay inqilaab inuu ku sameeyo oo markii ugu horeysay taariikhda isku dayay hay'ado nabad ah oo civilian ah inuu awood ku qabsado markii laga soo tago inqilaabkii 69kii sidaas oo kale 24kii Abriil 2021kii khudbad 8 daqiiqo ah oo tii xalay la mid ah ayuu jeediyay asagoo iska dhigaya inuu yahay nin nabad raba nin doorasho raba kadib markii ay dagaaladii Muqdisho ka dhaceen 24kii Abriil ka bacdina waan ognahay waxa uu sameeyay oo ah in uu ra'iisul wasaarihii marna yiri waxaan ka qaaday waxaan ka joojiyay awoodan ka dhimay marna uu yiri xilkan ka joojiyay marna uu yiri xilka hala soo xiro oo waxaan ku soo eedeynayaa dambi sidiisaba maxamed cabdullaahi farmaajo markii ay xaaladdu ku culus tahay oo cadaadis ama gudaha ama dibadda laga saaro daadka ayuu israaciyaa wuxuu iska dhigaa nin la socda dadka meeshay u socdaan laakiin intaas gudaheeda waqti ayuu iibsadaa wuxuu ku diyaar garoobaa inuu soo rogaal celiyo soona qaado dagaal hor leh sidaas daraaddeed annagu ma nihin dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin kuwa ku kadsoon ma nihin dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin waqtiga uu iibsanayo sababtoo ah maxamed cabdullaahi farmaajo marna raali kama aha doorasho madax bannaan oo hogaaminayo maxamed xuseen rooble nin yeelayo filla Soomaaliya asagoo fadhiyo ma aha sidaas daraaddeed waxa uu ka shaqeeyo abaabulka ciidan ah waxa uu ka shaqeeyo qabiilada inuu isku diro qaasatan kuwa Muqdisho jooga ah waxa uu ka shaqeeyo ah inuu u qaybiyo laaluush dad siyaasiyiin ah ama dad uu isleeyahay kasbo hawshaas uu ku mashquulsan yahay waxa uu iibsanayo waa waqti waxa uu gadanayo waa time waxa uu diyaar garoobayane waa inuu dagaal kale ku soo qaado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble muxuu sidaas u sameeyay xalay khudbadaas u jeediyay shir aan ognahay inuu ka soo horjeeday oo shir kale garab dhigtay oo diidanaa waxa aad taageerayso Soomaha wax markii hore aad ogoleed shirka aad taageerayso natiijadiisa Soomaha shir markii hore aad qayb ka ahayd ama aad ogoleed ama aad taageersaneed intaas oo dhan ma aha cadaadis caalami ah oo dibadda laga soo saaray iyo cadaadiska gudaha oo shirqoolkiisii oo fashilmay oo ra'iisul wasaarihiina ka hor yimid daraaddeed ayuu wuxuu isku dayayaa inuu daadka israaciyo waqtina ku iibsado sidii horay oo u sameey jiray annagu markasta waxaan fiirinaa ficilkiisa asagana oranaya ficilkayga iyo qowlkayga waa iskhilaafsan yihiin mar walba ayaan dari ka weyn ma jirto hal sano oo constitutional crisis dalkan inuu ku jiray maantana wuxuu ku jiraa waxa waaye azmad dastuuri oo shalay ku jiray maantana wuxuu ku jiraa waa azmad credibility in aan madaxweynihii dalka xukunka 4 sano sharciga ku joogay sanadka ku dhawaadna sharci darrada ku jooga qowlkiisa meel laga qabto iyo wax laga rumeeyo aan lahayn waa ninka kula ra'iisul wasaaraha xilkan ka qaaday waan ka joojiyay haddana soo saaray warqad xafiiskiisa ku socota waa ninka oranaya ra'iisul wasaaraha waa fiican yahay galabtii oranaya habeenkiina warqad soo saaray oo dhahaya waa fashilayay shaqadii waa ku fashilmay waa ninka shirka ra'iisul wasaaraha ku baaqay diiday markii wixii ka soo baxayna dhahaya waan rumaystay taasi waxaa la yiraahdaa crisis ama azmad credibility-ga misdaaqiyada qofka qowlkiisa lagu rumaysan karo wax ka xunna malaha qof madaxweyne dal soo maray inaan hadalkiisa meel laga qabto iyo xubin laga qabto iyo meel laga rumaysto uusan lahayn waxa ku soo haray inta uu qabka ku sheegay qabkan lagu celceliyo oo maalin kasta la yiraahdo qabkii Soomaaliya la soo celiyay qabka Soomaaliya ma waxa lagu soo celiyay in muwaadin Soomaaliyeed oo ka tiinadaysan dawlad ajnabi loo dhiibo qabka Soomaaliyeed ma waxa lagu soo celiyay ciidan kumaandoosa oo Itoobiya oo dariskeena ah in Kismaayo lagu qabsado lagu afgambiyo maamul halkaas ka jiro la isku dayo qab ma waxa lagu soo celiyay in
madaxweyne ama ra'iisul wasaare dal kale inta diyaarad kugu qaato madaxweyne dal kale kuu geeyo adoona ku talagelin miyaa qab lagu soo celiyey qabma waxaa lagu soo celiyey in askari Ethiopian doolow inta ka qudbeeyo uu yiraahdo annaga idinka walaalaan nahay laakiin cadow kale ayaan leenahay oo cadowgaas loola jeedo dowlad goboleedka Jubbaland ma waxaa qabkii lagu soo celiyey in wasaaradda arrimaha dibadda inta laga soo waco Mareykanka lagu yiraahdo George waxa wada la shaqeey ra'iisul wasaaraha qab ma waxaa lagu soo celiyey in dowladaha dariska ah la yiraahdo oo la socotaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka inuu markuu hadlayay oo yiri annaga gobolka qaasatan Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan ka warsanaynaa madaxweynaha dowladda Kenya in la yiraahdo miyaa qab lagu soo celiyey xilka waxaa lagu wareejiyay asoo madaxweynihii ka horeeyay xarunta White House-ka lagu qaabilaya lagu wareejiyay xilka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maantana waxay maraysaa in la yiraahdo arinta Soomaaliya waxaa laga hadlaa Uhuru Kenyatta taas waa been qabla soo celiyay ma jiro Soomaali quursi iyo meel hoose ayaa loo celiyay waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago arinta ciidanka oo leeyahay ciidan baa la dhisay ciidanka la dhisay kii madaxda lagu weerarayo Soomaha madaxweynayaashii hore kii mucaaradka lagu xabadeynayo guryahooda u dhacay Soomaha ciidanka kii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka xilka xoog uga tuuro isku hareereeyay xarunta baarlamaanka iyo hoygii oo deganaa maaha ciidanka midka ra'iisul wasaaraha dul dhigay askarta oo rabay xafiiskiisa xaruntiisa inuu la wareego Soomaha ciidanka oo dhisay ciidanku Soomaha midka aan hal maalin al-shabaab bad ku ridin 5 sano oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafiiska joogay 4 sharciga ahayd iyo sanadkii sharci darrada ahaa ciidanku Soomaha midka hadda filla Soomaaliya dhexdeeda isku hor fadhiya ee guryaha fillada ku hareeraysan ijaarkeeda iyo kiradeeda la isku dagaalayo sida boos loo kala xirto ciidanka Soomaha kii bartanka dhiiqada siyaasadda aad ka fariisisay oo dhalinyaradii aad isku dishay magaaladan dhexdeeda oo aad dowlad goboleed kasta u dirtay si ay uga soo dagaalaan aadna diiday inay hal xabad shabaab ku ridaan ciidankaas miyaa midka aad dhisto noo sheegaysid hantida aad ilaalinayso hanti la ilaaliyaa waxa ugu weyn oo qaranku leeyahay waa xukunkaad boobka sanad ku joogto hanti boobka weyn ma jiro sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed annaga waxaan markasta u taaganahay inaan u iftiinino hadalkiisa inuusan sax ahayn oo markasta dadka Soomaaliyeed jahwareeriyo oo uu ku dhaqmo halhayskii ahaa if you can confuse them haddii aadan qanci karin jahwareeri oo asaga dhan uu ka kooban yahay jahwareeriskana waxaa keenaya inay markasta ficilkiisa iyo qowlkiisa iskhilaafsan yihiin waxaan leenahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ninkan wax badan oo ku gaaday oo ku been sheegay oo waqti iibsaday dadka Soomaaliyeed waxay maanta kaaga fadhiyaan waa inaad doorasho xalaal ah oo daafurnaan la qabato habraacyadii adiga iyo dowlad goboleedyada intii la sixi karay waa saxdeen waxaa lagaga baahan yahay inaad doorasho xalaal ah dadkii kuraastooda la soo boobo dib loogu noqdo doorashada soo socoto mid xalaal noqoto dadka Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo iyo cadaalad aad u sameeysaa laga sugayaa ninka kan wuxuu doonayaa dardarta iyo guusha maadaama uu ku fashilmay inuu shaqo ka joojiyo maadaama uu ku fashilmay inuu ku inqilaabo maadaama uu ku fashilmay inuu shirki fashiliyo maadaama uu wuxuu dhan ku fashilmay oo momentumka ama ay dabaysha xaqiisa u soconin waqti uu iibsanaya inuu ku gaado maaha dhagjalaha u siinin doorasho xalaal ah si ku dhici lahayd ciidanka sidii siyaasadda looga dhex saari lahaa askar iyo saraakiil iyo madax quman oo amarka xafiiskaaga iyo xukuumadda hoostagaysa loo heli lahaa shaqadaas qabso ninka kani nin la aamini kara hadalkiisa ma aha waan garanaa beri subax ergow soo diri doona ra'iisul wasaaraha hadna la hadashiyo orad doona dadku isku dayi doona inuu isku maskiiniyo waa markuu duruufaysan yahay inuu nagaado ma aha hadalkiisana macnad weyn ma laha dadka Soomaaliyeedna inuu jahwareeriyo kaliya ka shaqeeya sidaas daraadeed annaga waxaan rabnaa isku duubni inaan marxalada uga gudubno dadka taageersan asaga oo kulunsan ayaan fariin u diraya horta ninka kan dadka taageersan waa saddex qolo asaga wax ka doonaysa ama uu wax siiyo ama aaminsan xilka asaga la'aantiis inay xilalka ay hayaan aysan joogi karin qolo aaminsan xabadda hebel loo wado haday ku dhacaysa aniga hay dhex marto oo fikirkooda saas uu ku salaysan yahay iyo qolo aaminsan in lunsan uu jahwareeriyay oo laga yaabo inay ku lunsan yihiin waxa uu sheegayo inta aan la hadlayo waa inta jahwareersan oo hadalkiisa ku lunsan oo markastaan u taaganahay inaan saxno
maalin kasta meel ayuu ka soo baxaa waa ninkiina yidhi banaadir aan 13 kursi siiyey si uu xiisada isaga dejiyo dadkana isaga hor keeno waxa uu ka shaqeeyo maalin dambana afkiisa lagama maqal banaadir iyo meel ku dambeysay maalin kasta waqti uu iibsadaa dadku iska hor keena kii mucaarad ku ah mid asaga ka soo horjeeda oo dadkiisa ama ehelkiisa ama dad ugu dhow inuu agtiisa keeno oo ka hadashiyo oo ka dhawaajiyo kaliya oo ka shaqeeya dadku ka soo dhaxadla sidaas daraadeedan waxaan rabnaa inaan u jeesano doorasho gacanna doorasho aan ku aadno gacanna shirqoolkiisa iyo makrigiisa iyo dhagar maleegiisa aan isaga ilaalino si aan dalka xaaladan dalakeedka xasaasiga ah aan uga gudbino waa mahadsantihiin khayr ayaan ii rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh